رضينا. سرانا في رياض العلم أزمانا أحيينا، وحان قطار القهار العزيز المنان مكور الليل على النهار. كن سقال قلت دبي لحدنكي أيها عبد الرحمن محمد جامع عضو تقانان اندعدي كسو بيري كون كان أي نمانت كتول نولاي أما أدويدنا أن تكود قليني. كن سقال قلت دبي تطواتكي لحي تطواتكي عفوا رالي هذا لحي أنت تطواتي سوور مريني. كن سقال قلت لحي تطواتكي waxaan uga aqbalay inaan ka qaato saxsanaantiisa aan ku waafaqay shakhsi ahaan aan iska dhaadhicin iga saxsayay oo walaalkii weyn qoraaga 1976 ayuu Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac indhacdo ku soo biiray adduunyada maarladan Ilaahay fidiyay dul taagana darashadiisa waxa uu qaadirku sabab u yeelay inay aabihi hooyo Soomaaliyeed sabab u noqdaan inuu dunida ku soo biiro. Aaba Maxamed Jaamac iyo hooyo Dool Sultaan Buul ayaa ku dunida amaarladan Ilaahay fidiyay sabab u noqday inuu yimaado. Jufada Miciga dheer ayaa ahayd goobta uu qoraagu ku dhashay ogow. malcamad quraantii iyo dugsigii hoose dhexe waxa uu ku qaatay magaalada Qallooc meesha loo yaqaan. deedna waxa uu hayaamay waxbarasho isagoo soo galay magaalada tan ee Boorama isagoo halkaa ka galay dugsigiisii sare ee Camuud Boarding School. horaantii 1991 ayay ahayd waqtigii uu ka takharujay ama uu dhamaystay waxbarashadiisii sare dugsiga sare ee Camuud Boarding School. intii uu dhaxaysay 1991 ilaa 2000 ayuu juhdi iyo dadaal aan barjoogsan lahayn u geliyay barashada quraanka iyo ahkaamta diinta. muddadaas ay ahayd waqtigii uu hubinay magaca sheekhnimo. 1998 ayay kulmeen waridiisa xalaasha Hinda Cali Iidaan oo maanta xaaskiisa dhabta ah. goortaas ay niyagaleeleen qoys islaam oo cusub dadoo dhaminay way mahadiyeen lana yiri lamaanaha qarniga iyo noqdo kuwa qarniga kale. kadib markay dal iyo dibadda mashxarad la isdhaafsaday farxad mashxarad quraan iyo ducada la isla meeray ayuu Ilaahay wuxuu ku arsaaqay Ilaahay baa ku arsaaqay laba wada wiil iyo gabadh. Khawla Cabdiraxmaan ayaa gabadha weyn oo dhalay qoraagu waxay dhalatay 2002. Usaamana waa wiilkeeda ku xigo waxay ka weyn tahay 2 sano iyadna isna waxa uu dhashay 2004. labadooduba hadda waxay ku nool yihiin magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ama qaranka Nusra qarniga iyo galeelan. waxay labadooduba wax ka dhigtaan dugsiyada diiniga ama macadada diiniga iyagoo barta quraanka iyo ahkaamta diinta. 2000 ilaa 2004 waxa uu shahaadada digriga ka diyaariyay jaamacadaha ugu weyn Hargeysa isagoo qaatay kulliyadda businesska ama inuu naqaan afka Soomaaliga luqadda qalaadna ku ah business afka Soomaaligana ku ah ganacsi. kulliyadda ganacsigu uu qaatay shahaadada oo yaqaan bachelor degree. qoraagu shaqooyin badan waa soo qabtay si inta laga matagaankeenu soo qaadanay. waxa uu la soo shaqeeyay shirkadihii waaweyn qaarkood ay saliirad hadda ku lahayn laakiin aynu baloogaano shirkadihii waaweyn ay kala ahaa Alayaasir Company soo kale waxa uu ku soo shaqeeyay shirkadigeedu isgaarsiinta iyo maqalka aad u taqaaneen ee Albarakaad. haddaba unfortunately 24 September 2005 waxa uu galay xabsi. waxa uu maray maxkamada kala duwan si maxkamadii ugu dambeysay waxa ay ku xukuntay inuu xidhnaan doono ama xabsi uu ku jiro 10 sano. laga soo bilaabay ilaa hadda muddada maanta la taagay qoraagu waxa ku jira 12 sano jeel. buugaagta uu qoray qoraagu waxay kala yihiin 2 buug. buuggan aan caawa martida gabi ahaanteeduna waa buugga koowaad ee qoraagu adduunyada kulkeeda uu soo bandhigay. waxa uu ku qoray luqada inaga fogeyno teeni hooyo aan ka wada dheegsanahay aynu ku hadalnaa waynu fahnaa waynu maqalnaa suugaanteeda waynu bixnaa xataa abwaanino ku nahay. bal buugga kan ee koowaad ayaa magaciisu yahay bal aad guursatidii horta baragayanka. buugga labaad waa diyaariyay laakiin sida hadda la hayo madbacadii un baa dhiman iyo tifatirkii. buugga labaad uu soo saaray qoraaguna bal waxa weeye badbaadi deegaankaaga iyo dadkaaga. waa buug isaguna ka hadlaya xaalufinta dhirta. intaa markaynu isla qaadan anu dareen ahaan waxaan qabaa qofka haddii uu jeel ku jiro inuu dismoral qaado aragtida waan ku qanacay. dareen ahaan waxaan barnaamijka u doorbiday markii loogu yiri fariintaada lagu dooray inaad barnaamijka daadahayso anoo ma yeehaawlan baan hayay. waxaan la dhacay dareenka in qof jeel ku jiray uu qori karo intii xorriyadda haysatay baynu dhaafo oo isagu inoo soo saaray buug wax runtii lagu fiiro.
مرلبات سولو وذا ندلية وأشقرات مركاد أركي سبوغاك اسمت بدليسا ميدابين يوسين قدو تسقاله قد أنو تلمامني جيغات وحي كبلابا تعدون كدورها مركاسي سيلا ملحاتتا يدولين بحيرا هذا مركاسي سيلا حاتتا أو يلين بحدا ميدابعدون أو إشي أركتابة جاليستو لكن وحان حد كالدينا جيغان يفقل بيتونا معها تولو محوياي مدو بعيركا موجدها بدا قروحتي سقيل دليل مودتونا معها محوياي تولو أشقرار كوا كعنتا سيد الرئيس كلوا حقرتا تيو مسكحت إيا مادكا مسكا مركلة أشقرار كوا قراغ الصومالية دي لهولنواي عبد الرحمن محمود جامع عبد الرحمن إن عدات كوكرا نكتاي انتو برنامج كان سعودو أيانا قفهان كله فقولي دونا تاريخ نوليد كيس فعويني واحتر كيس ترابيلكا انتيني كسو دوي وحامانتي نويا أما ينو تاغن قف متليا برتي يكالنتي قراغا واجعلين قراغا الله كلنا مسيج كيسانان قادني أفر جنيدية بقل جير نصيب درو هاد فتاح مرمي الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده القنا والفقر وأنزل الماء والشقى سال أحمده سبحانه فهو الذي يجرى على الطائعين يجرى وأسفل على العاصين صفرا الحمد لله الذي تسبح بحال الجاريات والأنهار الجاريات والجبال الراسيات ولا نجملوت السعار ولك الحمد يا ربي أخواني وأخواتي وسملائي واستقائي وآبائي وأمهاتي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مضن أياني مروي مرتضى مسؤوليينتا مركها ماموسكا ميقامكا يا مكتبة سربنا كمضن dhalinyarada quruxda badan ee horteeda fadhida mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh assalaamu calaykum assalaamu calaykum marka xigta waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha deegaanka aqoon-yahanada agteeda fadhiya iyo bulshada soo fadhida quruxda iyo qiimaha iyo qaayaha marka xigta aan hadalkayga meelaan uga baxay kana ilaalinaya hadalkayga waxyaabaha turxaamaha waxaan si toosaan u kali doonaa buuga iyo fariinta ugu gudbinayo waxaan khudbadeeda ku soo qaadan doonaa saddex qodob qodobka koowaad waxaan kaga hadli doonaa buuga iyo qiimaha uu leeyahay buuga iyo magaca dushiisa guud uu gudbinayo fariinta uu gudbinayo waxay tahay qodobka saddexaad waxaan kusoo gabagabin doonaa buuga iyo waxyaabahan ka bartay idinkana aan rajeynayaa dad qaadataan aad ka baran doontaan waxaan ku horeyn doonaa magaca buuga saad arkaysaa laba erey baa isku sidkan labada erey ee isku sidkani waxa weeye waa guurkii iyo barashadii gayaankaaga aad baranaysa saynu ognahay markaynu guurkaynu qeexayno guurka waxaa la yidhahdaa waa kay ku kulmaan wiilkii iyo gabadhu kaasuu dhammaystiran yahay sharcigii islaamkuu dhammaystiran yahay qawaaciddii leh qaanuunkii leh magacii iyo maamuuskii islaamnimadan huwen isagoona dhinacna aanu dhaafin hiddihii iyo dhaqankii aynu lahayn ayaa guur la yidhahdaa helitaanka gayaan helitaankuna waxa uu noqonayaa suurad ilaahay isagoo ka warramaya qur-aanka ayuu alkhabiisaat lilkhabiisuuna waalkhabiisuuna lilkhabiisaat addayibaat lidayibuuna wadayibuuna lidayibaat gayaanka marka laga hadlayo gayaanka kaasaynu naqaana waana hadal ilaahay uu yidhi kaasaana inooga mudan inaynu murjac aynu ka dhiganno ilaahay isagoo qur-aanka ka warramaya aayadda ka warramaya wuxuu yidhi dumarka xunxun iyo dumarka xunxun waxaan u diyaanay rag xunxun dumarka xunxun waxaan u diyaanay rag xunxun ragga xunxunna waxaan u diyaanay dumar xunxun dumarka wanaagsan waxaan u diyaanay rag wanaagsan ragga wanaagsan waxaan u diyaanay dumar wanaagsan markaynu ka hadlayna gayaanka taasaynu dib ugu noqonaynaa marka magaca buuga waynu ka dharagsannaha u malaynaya soo kuma aynu dharagsanin waynu ka dharagsanay soo maa waa saas midda labaad marka laga sheekeynayo human behaviorka marka laga sheekeynayo dabeecadaha ama astaamaha ay xayawaanadu ay leeyihiin xayawaanku u yaqaanaa sida loo guursado u yaqaanaa laakiin soomaalidu inta ugu badan ma taqaana sida loo guursado markaas si aynu baranay sida aynu guursano waa inaynu buugga aynu qaadanaa laba yaroo tusaale oo gaaban baan soo qaadanaya kuna caddaynayo human behaviorka marka animal behaviorka marka dib loogu noqdo asbaabaha ama sifaadka ama tilmaamaha u yaqaana sida loo guursado shimbirka waa taqaanaa shimbirtana waa taqaanaa shimbirku markuu doonayo inuu shimbir u guursado shimbirtu imtixaan bay ka qaadaa waxay ku tiraadaa cuf dhis bay ku tiraadaa cufkaa marka uu dhisay cufka uu adkeeyo cufka uu kulkiijiyo kadib ayaa markaa shimbirkaa kasoo baxa shimbirtaa halkaa u hooyata
kadib shimbirtu halkaa markii uu hooyto way ku kalkalataa markay ku kalkalataa haddii baalkaasi uu dhaqaaqi waayo ninkaa waxay aragtaa ninkii noloshiisa wax ka qaban lahaa saasaa ninka guursataa iyadoona lacagaa ninka qaadayn laakiin haddii cufka uu kala daato horo soco bay ku tiraadaa mid labada qodobka labaadna soo qaadanaya wuxuu yahay digaaga waa taqaanaan diigana waa taqaanaan digaagu marka uu guursanayo digaagadda isaguna imtixaan buu ka qaaday imtixaanka uu ka qaadaa waxay tahay diigu marka uu xoraysto geedka uu ku nool yahay ayaa markaa diigadda u timaadaa haddii uu xoraysan kari waayo geedka isaguu ku nool yahay haddii isagu uu xoraysan kari waayo geedka isaguu ku nool yahay diigaddu halkaasay kaga dhaqaaqdaa markaa bini-aadanku iyagu ma yaqaanaan sida loo guursado markaa si aad u baratay sida aad u guursato waa inaad buugga aad akhrisato buuggana aad qaadato sidoo kale dadku labuun bay u qaybsamaan lamaanaha wanaagsaneed ku sifoobaysa aayaddii marka hore aan soo qaatay waxay ku cadaynaysaa lamaano wanaagsan waxay abuuri karaan qaran wanaagsan waxa uu keeni karaa gobol wanaagsan wuxuu keeni karaa qaarad wanaagsan waxay keeni kartaa qowmiyad wanaagsan qowmiyadda wanaagsan waa ta keenaysa adigoo cabdiqani mandeelaa inaad hiigsato lagu tilmaamo hooyadii aabbaha adiga ku dhashay oo la yidhaahdo dadka noocaasay soo saareen markaa guurku faa'iidooyinku uu leeyahay adigoo qofkaaga nolosha la barta faa'iidooyinku uu leeyahay taas ayaa ka mid ah soo kale buugga markaad akhrinayso buuggu marka ugu horeysa wuxuu ku salaysan yahay isagoona shareecada islaamka aanan dhaafaynin qodobbada kale buuggan ka faa'iido waxaa ka mid ah guurka markaynu ka hadlayno waxaynu isugu jirnaa dad guursaday oo guurka cilmi iyo aqoon badan u leh laakiin aanan garanayn afarta ka xaaraantaa guurka muu jiraa qof garanaya afarta ka xaaraantaa guurka muu jiraa markaasaynu qorano buuggaynoo diyaara afartaas ayar dul istaagi doona afarta ka xaaraantii waxa weeye guurka la yidhahdo mudqada mad maqasheen guurka mudqada la yidhaahdo isagu wuxuu ka xaaraan yahay guurka caadiga ee qofka aad guursanayso guurkaasina waxa weeye guurka mudqada waa guurka lagu heshiiyo in wiilkii gabadhu ay ku heshiiyaan bil baynu isqabaynaa sanad baynu isqabaynaa 2 sano aynu isqabaynaa kaasi guurka islaamka ama shareecada islaamka uu qalbisan yahay markaa si aad u barato guurka noocaasiya waa inaad qodobkan dib aad u siiraado qodobka labaad ee guurka ka xaaraankiisa isaguna wuxuu yahay waa shaqaarka guurka la yiraahdo guurka shaqaarka waxa weeye anigoo wiil aan saaxiib nahay imika khadar isagoo saaxiib baan nahay waa anigoo khadar yaasiin ku yiraahdo gabadha aad walaalaha tiiwan guursanaya anna walaashay baan ku dhisaya anagoona waxa lacag aan kala qaadanin guurkaas waa xaaraan markaas aad barto guurkana waa inaad buugga dib aad ugu noqoto qodobka saddexaad isaguna ka mamnuuciyay waxa weeye guurka la yiraahdo maxraamka isaguna waa ka mamnuuc waa kaasiyo gabadhii marka aad furto ee aad ku tiraado saddex baan kugu furay dib aad ugu noqoto iyadoo gabadha aad ku noqonayso dib aad ugu noqonayso aanan horowna soo guursan laakiin gabadha aad ku tiraado ku furo saddexdii baan kugu furay marka gabadhii toos uma noqon karaysa waad fahanteen Soomaa marka inaad buugan qaadano qodobka afraad waxa weeye waa wiilka oo isaguna 4 gabdhood qaba waa afartiisii gabdhood isagoo qaba doonaya gabadh shanaad inuu ku shaneeyo taasina shareecada islaamka waa ka xaaraan laakiin waxa u bannaan afartaa mid ka mid ah haddii uu furo 3 usii qabay taafraad inuu guursado diinta islaamka way goshahay marka waxyaabahaas oo dhan khalkhal bay nagaga jiraan imika waad arkaysaan saadii soo daawanaysaan laakiin diinaan ka akhrisanaya waxyaabahan akhrinay inaad la fahmideen laakiin buugga haddaad qaadatan si fiican baad u fahmi doontaan anigoo hadalkayga ururinaya hadalkayga waxaan ku ururinayaa soo ma jeclin in nolosha aynu doono guul iyo sama aynu ka gaarno buuggan baynu diyaara hadalkayga waxaan kusoo koobayaa 1 minute halkaa minidna waxaan comment kaga bixinayaa buugga markaan akhrinayay qoraal yar oo gaaban baan ka sameeyay waxaan idhi buuggan waxa uu xambaarsan yahay tilmaamo talooyin iyo tusaale waa buug ay ku suntan yihiin aqoon diiniye iyo aqoon maadiba waa buug ay ku dheehan yihiin qormooyin iyo qoraalo cajiiba waa buug wanaagsan oo xigashiye ka daba qaadashada mudan oo ku saabsan nolosha iyo raadiyahaanshaha nololeed ee muguuraanka ee samaha iyo sareedada wanta nolosha muguuraanimo markaynu ka hadno waa nolosha ugu dambaysa ee qof kasta uu jecel yahay inuu hagaagto sidoo kale buuggan waxa lagu tirin karaa ama loo hiibin karaa tugsashada inta wanaagga jecel waa inaga haddaynu buugga aynu ka faa'iidaysanayo aynu noqonayna marka dadka samaha jecel iyo inta samaanta iyo samaynta jecel iyo sidoo kale kahorjeedka dadka aanan samaha iyo sareedadan jecel marka buugga intaasuu ka hadlayaa ereyada ku qoran buuggan ayaa waxay isugu sidka yihiin labada erey sida uliya diirkeedna lama kala qaadi karo hal iyo dhirigteedna lama kala eryin karo
marka labada kalmadood basaas ay isku yihiin kadib buugga aynu ka faa'iideysano buugga laba qaybood buu ka sheekeynaya qaybta koowaad guurku ka waramaya qaybta labaadna buugga wuxuu ka waramaya nebiyadii buu ka waramaya shan nebi baa quraanka ugu sheegay 25 nebi baa lagu sheegay 25 ka nebi buu ka sheekeynaya sifaadkii iyo guulaha gaareen buu ka sheekeynaya inaynu guulisana waxayna ka filan inaynu rusushii iyo nebigeennii aynu ku dayano markastoo la soo hadal qaadana aynu ku salino aynu markaaynu mudannahay marka inaynu guulisana soo diyaar ma nihin guurkii markaad ka soo baxdo guul baad diyaar u noqonaysaa guusha diyaarkaad u noqonaysana waxaad ka baranaysaa amaad ka dheehanaysaa ama noloshaada aad doonaysaa inaad ugu salguudho halkaa nebiyadu ay maray inaad marto hadalka waa nagu dheereeyey anugu xayawaanka yaraa aboorka la yidhaha intuu leeyahay mooyaanad garanaysaa nin kale leh aboor intuu leeyahay dundumada uu dhisaa intay leeg tahay waxa uu ku dhisaa inay candhuuftiisa tahay goorta uu dhisaa inay habeen tahay hadday aboor intuu leeyahay yaa ka ragina aboorku waa wax yar weliba waxa laga yaabaa intiinani hor fadhidaa inaan idinaan arag waa xasharad yar oo naqan waxay dhistaa wax ka dheer fooqan agtayna ku yaaleelo maxaa dunduma wuxuu dhisaa 10 mitir joogeedu leeyahay wuxuu ku dhisaa ciid iyo candhuuftiisa maaha biyo uma keeno cid kale uma keento candhuufta isaga ka timaada ayuu ciidda intuu soo qaado ku qoyaa markaasuu saaraa markaas waxay noqotaa aqalkaa dheer goorta uu dhisaa maalin maaha oo la arkay maaha habeenkii buu dhisaa waa 3 masjid kala dan shaas wuxuu yar wuxuu dhisoo weyn goortuu dhisoo muxuu ahaa habeena waxuu ku dhisoo candhuuftiisii ah buuggan haddaba mucjisaa saddex limadu istaa waxuu ka shaqeynayaa mustaqbal iyo guur iyo nolol ninka qorayaa xaguu joogaa xabsigu ku jiraa oo ma jooga ifkana joognabade waa mucjisa labaad waa mucjisa dheeg ninkani waa maxbuus weliba muddo soo xidhnaa inuu noloshaba meeshan imika uu ka hadlay dee inuu joogan weynaan balay waa mucjisay ka mid tahay yacni insaanka ilaahay siiyey waana mucjiso taa aboorka la mid ah aniga aragtidayda marka waxaa kaloo istaa buuggani intii aan arkay imika oo mucjiso ah oo yani muxuu ahaa in laga fiirsado qoladiina dhalinyarada akhriyi doontaa aad ku dayataan ama la raaca ah oo nuxur dheer ah meesha uu ku qoray iyo qaabka uu qoray iyo helganka uu galay in buuggaasi qormo isagoo aan xorriyad haysan bal haddaba inaga xorriyadda haysanee dibadda joogna ee tahriibayna weliba inagoo cilmigii leh oo caqligii leh oo muxuu ahaa wax waliba ay suuragal loo yihiin kolkaas sag dhigto iyay mucjisada cajiibkaa tahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada ay soo hor fadhiday buuggani waa buug mucjiso ah ninka qorayna waa mucjiso innaga in aakhirna laynooga baahayna waa in mucjisada waxay tahay faallayno kaanu wey ninkani wuxuu la xidhnaa oo lala qabtay 8 nin bay ka ahayd gruubkoodu anigu gruuban ka mid ahay waxaan madaxweynaha kala hadalay siiraayo ninkan iyo xadhigiisa dooni maayo inaan caloolxumo idin geliyo oo dhalinyarada soo fadhida maxaa wax uu sheego ma jeceli laakiin waxaan idin leeyahay 8 nin ay ahaayeen labay ku xidhan yihiin nimanka 6 kale waa la sii daayay qaar buu sii daayay madaxweynaheenii rayaale qaarna kalaa sii daayay anuu kolkaan run idiin sheego waxaan aaminsanahay ninkani waxa uu ku xidhan yahay inaad tahay xukun ilaahay cid alle cid loo qabsan karo iyo cid muxuu ahaa lagu eedayn karaa aana jirin waayo haddaan ilaahay meesha u qadarin isagana waan ku idhi cashaan ugu tegi jeelka waxaan ku idhi in ilaahay kaaga badbaadiyo wax xunood geeli lahayd ama wax ka daran oo ilaahay muxuu ahaa dembi kaaga qaadi lahaa iyaaba suuragal ah dabadeed hadalkayga cishadii waxa kabaya oo ninkani faa'iidada uu muxuu ahaa soo saaray marka mucjisada aan sheegaya cishada kula dardaarmo koodii aamin meeshan
nebiyana way galeen hortaa dabadaana waa la geli doonaa gardarro iyo garba waa lagu galaa jeelka anigu baa lay xidhay baan uga sheekayo aan ku idhi ninkii xidhayay isagoo iga sii wada jeelkaan ku idhi ma taqaanaa qur-aanka markaasa wuxuu igu yidhi haa markaasa waxaan ku idhi wuxuu igu yidhi horta isaga igu yidhi meeshii raggaan ku wadaa aamin markaasa wuxuu qur-aanka ma taqaanaa markaasuu igu yidhi haa kolay munaafiqiintu nebi maxamed suurtu tawba ay muxuu ahaa yani waanu ku raaci lahayn haddii aan kolkii guushi kolkuu guulaysto kolkaa lana ilaahay bay naga reebay ilaahay wuxuu yidhi waxaa tidhahaa nebi allow lan yusiibuna ilaa maa kataba allaahu lana huwa mawlaana wa allah faltakum aayaddaas waxay xambaarsan tahay qofna inaanay wax kala helin wax ilaahay qadaro ninkii waxaan ku inta maalmood aan bariis ku lahayn meesha yaa soo joogay maxamed siyaadoo soo socda kolkaa muxuu ahaa xamar ka soo baxay aan ku kaa ugu weyn jeelkaa iguma hayn karaa dee ilahayka adigaysa sheegay ilaahay qadirta cishaan ku xidhnaa meeshii waa soo baxay iyaguna waxay i qoreen lahaya siyaasadoon weligii soo bixin ba ilaahay qadirka waa soo baxay ninkii baa uga miday meeshii halga qaaday waxaan ku idhi shaafi baa loo war shaafi ma garanaysaa ishadii waxaan ku idhi wuu cabaado wuxuu igu yidhi adeer anigu dee maana askari baan ahay markaa dibir leena war kumeli waxaaba ku idhi waxaan kuu sheegayaa inaad aaminto ilaahay iyo qur-aanka waxaan ku idhi maalintii intii ilaahay qadalaan joogi meesha adna waxaad siday waaran odhanay weligii ha xidhnaado ilaahayna wuxuu ku yidhi todobankaa maalmood u beriska meesha ku leeyahy haddaba aamin oo qur-aanka waxaan ku idhi ilaahay awoodda u daa oo ha iska dhigin adigu iyo cidda aad la shaqaynaysa in awood leeyihin inta cadda waxaan u diraynaa fariino waxaan leenahay jazaaka allah khayr waxaad soo qortay waxaa dambeed wadana ilaahay kaa abaalmariyo niyadaadu say usan tahay aad u aamintay meesha inaanad yani nin quusa ahayn baan kugu dhiirinaynaa isagay taasaan u diraynaa dowladda soomaaliyeed laana waxaan u diraynaa leenahay cadaaladdu aqaladeena ha taalle aqalka leeya oolin cadaaladdu aqalkeena ha taallo aqalka leeya oolin ciddii dembi gasha dembiga intay gashay ha lahaato walaa taziru waasiratu wisra ukhraa ilaahay baa yidhi walaa taziru waasiratu wisra ukhraa idan waxaan leenahay dembi qofkuu leeyahay in ka badan yaanu maxaa iyo meel kaloo wax looga qaado idan fariintaasaan u diraynaa idankana waxaan leenahay buuggani waa mucjisada awoorka mucjisadeedii taa awoorka ee aan ka sheekeeyey buu la mid yahay akhriya dhuuxa waxaa ku jira waxyaaba aydnaan weligiin maqal guur la yidhaaho ama furniin la yidhaaho qoloc baa ku jira qoloc maad maqashay weligii fiqi ku jira fooq qoloc waa gabadhoo iibsataa warqadeeda gabadhoo ninka iibsata warqada marka cilmi diineed baa ku jira cilmi waxaa ku jira muxuu ahaa camal dhaqan baa ku jira dhalinyarada iibsada akhriya gudbiya wax ka soo saara wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaalada boorama aaba cabdiraxmaan sheekh cumar daahir meelo badanna taabtay xog badan ay naga haya anaguna dhalinyar ahaan xog badan waanu haynaa ku istaagi mayna halkaas intaan xorriyaddeeda haysan ilaahay xorriyaddeeda siiyo cadaaladuna way isu taraan doontaa qof kullama ilaahay ku xidhayayna xaq uu soo daahiri doonaa indhacadda fariintaan baan u diri lahayn xaqa ku adko insha allah hadduu ilaahay idinkeeda yeesho fariimaha nabadaadoo joogaan hor istaagi doontaa waxaan si toos hadda ugu yeedhi doonaa ban africanisti beeroole ganacsade siyaasi teetan walba uu qaatay bal hadda maandeelo yar baynu aragnay maandeelaha weyn baan soo qaadaynaa hayso dhow de horta konton jir baan ahay laakiin laima malaynaya ban africanism waan ahayoo 94 meel dukaano halkaa ku lahaa aan ugu magac daray soomaalida marka buugga cabdiraxmaan aan usoo noqono wuxuu ka hadlayaa guur laakiin huis cabdiraxmaan qoraagu waayo markaan leeyahay waa inaayo malihi ujeedadiisa iyo nuxurkiisu maxay tahay qoraagu waxa weeyaan qoraa waqti badan siiyey inuu dadka nolosha tiirar nolosha ka mid ah inuu kala hadlo isagoo ku jira meel xasaasiya iyo waqti xasaasiya ku dheeraamaayo cabdiraxmaan waqtiga uu dhashay
dee anigu waxaan ka weynahay 12 sano December 7 1964 baan dhashay markaa dugsiga dhexe ayaan ku jiray magaalada Buurama dugsigan la dhaca Cabdiraxmaan Qaadi waqtiga waxaa soo aawanaa oo soo bilaabay dagaaladii Soomaaliya iyo Itoobiya laba arrimood ayaan ku bilaabayaa hadalkayga marka la eego Soomaalida ama adduunyada ama dadweynaha dunida ku noolida laba arrimood baa biis u ah waxa la yiraahdaa diin iyo waxa la yiraahdaa jinsiyad diintu rasuulullaahi ku xiran tahay waa waxay samada ka yimaada laakiin jinsiyadu waxa deegaano midabyo abtirsiino waxay kaas marka ay to Soomaalidu guurkeegu waa guur dhaqan diintu hadda ayay soo bilaabatay laakiin 20% kama ahayn Soomaalidu qowmiyadaha kale ma guursato hadduu muslim yahay iyo hadduu Christian yahay Soomaalidu identity crisis baa haya markaad eegto maaha Arab maaha African waxa aan waqtigeenu yareen ku soo noolayn wadanka la yiraahdo Djibouti laba qowmiyadood baa degan waa Soomaaliya Anfar labaduba waa muslim Anfartu waxaad arkaysaa iyadoo Soomaaliya jabsanaysa laakiin Soomaalidu af Anfar ma doonto concept-ka aan ka hadlay waxa weeye social integration ka Soomaalidu ay la leedahay qowmiyadaha Ilaahay adduunka la dhigay Afrika la degan very low waana sababta hostility-ga badani oo u socdo iyagu waxay isku haystaan xor Afrikaanka kalena adoon bay ugu haystaan that's wrong waa arrin khaldan diintu waxay ka wada timiday Asia ama Europe hadii la yiraahdo laakiin diin Afrika laga dhex bilaabay ma jirto whether is Christian or Muslim aan waxaan aaminsanahay in qofku aad isku midabka tihiin dhaqanada badan aad wadaagtaan markaan Koonfur Afrika joogay waxaan arkay Koonfur Afrika waa wadan sida Europe oo kale u dhaqma wuxuu leeyahay urur la yiraahdo Gay and Lesbian Association waa urur ka khaniisiinta 1% dadka Afrikaanka kama ah waana Christian 90% waxa ka ah dad kale oo awalkoodii hore muslimiin ahaan jiray oo Asian oo Indonesian iyo Malaysian marka horta waa koobaade dhalinyarta qoraaga ah waxaan u sheegayaa waxaan akhriyay boqolaal buug oo ay qoreen qorayaal kala duwan macnaha qoraalku saddex muhiimadood leeyahay muhiimadda koobaad waa in qoraagu uu leeyahay wax la yiraahdo common interest oo uu ilaalinayo oo aan marnaba dhaawacayn isagu xitaa qoraal kale ka jawaabay Soomaalidu haddaan idhaahdo laba diimood bay leedahay waxa laga yaabaa istaafurla inaad tirahdaan laakiin actually laba diimood bay leedahay diinu waa ta qabyaalada diinina waa tii muslimkii caadiga la yaqaan actually waa labo loogu ictikaafo aqaladeena oo lagu maxay hayday la ixtiraamo weey bayna mutafirrama waa wax nolosheena ka mid ah marka Soomaalidu waxyaabo badan ayaabay soo martay dawladnimada ka hor Soomaalidu sida Afrikaanka ay xornimo u lahay iyada ayaa xornimadeeda raadsanaysay cid kasta ku taageerto laakiin marka la eego Cabdiraxmaan indhaade oo waqtiga dhashay iyo Cayro oo waqtigiisii dhashay waxay ahaayeen dad kamida ururada islaamiyiinta ee Soomaalida maxay doorteen ma aha haddii aad xayawaanka ugu yar qaado oo damacdo inaad awooddaada siiso inaad ku khasabto ujeedda aad leedahay ma dhacayso muhiimaddu waxa weeye maxay dadkani u doorteen bayimi waa sii joogay taytalada qaadato waa baan Afrikaanisti beerole ganacsade siyaasi inta way isqabanaysaa hadaladiisa waxaa ka mid ah baroor lama baahno xikmad carabi waxay tiraahdaa الدموع لن تغير الواقع لكنها أحيانا تروح القلب إلمتي وينت واقع دمت الجلال وحبك بدل ما يسوي لكن قلبي ما كير راح يسوي حقي كان إن شاء الله يسبدل واقع وقدو نهد ولا يدي كيديش
waxaan si toos ugu soo dhaweynaya bal maandeelooyin baad aragteen cabdiqani aynu baranay cabdiqani soo dhow inta akhriska jecel oo wasaaradda waxbarashada ka leenahay oo inta qoraalka jecel ka leenahay habeen dhaweyd baa telefishinka qaranka Soomaaliya waxa ka socday maxaabiista jeelka Muqdisho oo soo saaray farsamooyin cusub waxa leenahay maanta hay'adda asluubta iyo ciidanka Soomaaliland war waxa taariikhda ku galaysaa in maxaabiis wax qortay idinku jiraan oo arin standard caalami ah oo wax joornaalada caalamku ka faalloon karaan waxaan u sheegaynaa in maanta qof xabsi ku jira uu qoro buug oo soo saaro oo arin ku faani karta qaran ma karaanka qofka ku jira ma dambiga oo sharcigan dhigtaayo wax badan baa loo ka garanaya sanadka man qalinjibinaya jaamacadda caalami laakiin waxaan isla eegaynaa maxbuusku adduunyada marka laga hadlayo prisonersku maxaabiista iyo xabsiyada akhlaaq wanaag markay muujiyaan waa la darajeeyaa waa la ixtiraama marka Cabdiraxmaan Indha Cadde wuxuu maanta guddoonsan yahay in bilaa sharaf xabsiga lagu dhex guddoonsiyo arrintan waxa waxa weeyaan muhiimadda akhrisku ku leeyahay bulshada arrintan wax badan baan ka qaban doonaa haddaan nahay dadka qoraalka iyo xiiseeya joornaaladan ku baahin doona in Soomaaliland jiraan qof wax qoray xabsiga dhexdiisa ka 25 sano Soomaaliland jirta ma dhicin waa arrin cusub ka waxaan dadka reer wada aqoonta qalbiga ku hayay iyagoo xoray wax qori jireen iyagoo xorayna wax la qoray marka madaxda wadanka iyo dadka cadaaladda iyo waxaan leenahay anagu kama hadlayno dambiga uu ku jiro waa la wada arkaya laakiin waxaan ka hadlaynaa dhiirigelinayna bini'aadantinimada human rights ka waxa la yiraahdaa dhiirigelin أنا waxaan jeclahay campaign oo noqdo human rights iyo development ka wax saasiya marka waxaan doonayaa inaan nagala hadlo adduunka marka laga hadlayo buugaagtan niman dhalinyaro ah oo ayaa daabacay waa la yaabay in xabsiga intii buug laga soo dhex qaado in dawladdu ku faantay ay dad fadhiisa buug oo dawladdu taageerto laakiin waa rindhic weyn buugan waan weyneyn doonaa buugaagta caalamiga ee Soomaaliland ka dhacay geyn doonaa meel walba geyn doonaa waanu faafin doonaa sida aqoonsiga Soomaaliland lagu raadinayo ayaanu akhriska iyo baahinta raadinayna waanu gelinay bijijka waa wada human rights watch iyo Amnesty International iyo meelo badan baa luqado badan baan ku qori doonaa run ahaantii anu waan la dhacay ruuxiyan baan dareemay oo qofka bilaadanka inuu waxaan soo saari karo mid kale buugga ku xiga isaguna mucjisa oo soo wado waxaan doonayaa waliba inuu xabsiga inaan ugu tago dareenkaas ay kala caaw oo aan booqdo oo aan la soo sheekaysto waxaan doonaynaa markaa buugga kala soo deegaanka iyo dhulka ka hadlay wax badan baan doonaynaa inaan lulno waxaan leenahay ha laga odayeeyo madaxweynaha lagu noqdo oo dadka sida u intelligent-ka ha lagala hadlo waxaan ka hadlayaa arrin wax akhriska adduunku way ixtiraamaan waxay ku ixtiraamaan meeqaan ku leeyahay inaad wax akhrisaan buugga markaad iibsataan haddii iibsada laydinka yidhaahdo oo laydin odhan waayo idinka akhriska laydin dareen celin waayo laydin waayo akhrista iyo akhrisku qiimaha leeyahay laydin sheegi waaya ma dhadhansanaysaan marka akhrisku laba mid weeyaan waa mid qofeed iyo mid bulsho marka qofku waa maxay waa quudka maskaxda iyo garashada qofka aadanka marka waxa jira ogaalka qofka ayuu buugaag dhisaya aan wax badan oo shareecada waxaan laga daraa korof family law markaan dhiganay ahwaal shakhsiya markaan dhiganayno meel badan oo dumarka iyo arrimo badan oo guurka soo galay marka Soomaaligu ku qoray anoo kii jaamacadda fahmi oo ku dhacay siibaan kana malaynaya idii waxaan ka garanay ayaan wax badan oo guurka intaan jaamacad dhigay waxaan fahmayaa luqadda lagu qoray baan fahmiyay marka inta afka taageertaan loo gudbinay in waxaad ogtahay waxaan jirin oo jiri iyo wax jira oo aanad ogeyn labadaba waxa lagu fahmaa akhriska inaad sanado badan noolaatay inaad muddooyin badan noolaatay waxa lagu ogaanaya akhriska waa aqoon xeel durugsan la akhrisku iyo hadda buugaag badan oo saameynta nolosha iyo xadaaradda bulshada akhrisato waxay la dhigantahay inaad dad caqliyo waaweyn la sheekaysato وآخرسك البواق وين أخرسته وحكى لي أنت كيف بوق قري حلقة هدو شافعي بوق يسال خرسته ما كان شافعي بوق تيسال خرسته وحلا لي أنت يعني ده سجل الشيء كيسي كحال بوق ما كأخرين عند عبد الشيء كيسي يسمودي واحد صار عندي سوق أنا
waxaan doonaynaa ummaddeenu inay isbedesho oo dalkeenu isbedelo oo siyaasaddeenu isbedesho oo cadaaladdeenu isbedelo oo aqoonteenu isbedelo oo inagu isbedelno oo aynu hiigsano waddamada aynu hiigsano dee maxaabiisteenu way isbedeshay waan ugu faaraynaa adduunyada maxluuqa marka waxaan leenahay maalgashiga maskaxda iyo caqliga marka laga hadlay ummado badan oo dunida aynu la qabo zero boqolkiiba 0%. waxaa jirta Singapore waddanka Singapore la yidhaahdo maktabad baa jirta waddaniya maktabadaasi waxaa jirta waxay waddanka dhexdiisa Singapore ku leedahay 24 laamood 24 ka laamoodi maxaa yaala bugaagta yaala ma garanaysaa 8.5 million books bayaan dadka marka maxaan fahmay waxaan dhiirigelinayaa anigu in wax la soo saaro bugaag badan la soo saaro wax la akhriya 8 milyan bugaag sare u dhaafaya ayaa marka waxaa booqda maktabadaas sanadkii 36 milyan oo qof oo Singaporean marka la isku celceliyo maxaa la oranayaa dadka Singapore waxay booqdaan maktabadaasi dadka Singapore way isku tiradoonahay Somaliland waxa la yiraahdaa Somaliland waa 3 milyan laakiin wax cad ma waxa la yiraahdaa marka Singapore waa 3 milyan waliba adduunyada imika meeqaan badan ka gaaray oo diyaaraduhu isku kala gooshaan daafaha caalamka marka 36 milyan ee booqda sanadkii isku celcelis marka la geeyo dadka Singapore maxay maktabada tagaan 7 jeer marka maktabadahan u geyn doonaa buug inaynu wax akhrina waxay ka dhigan tahay isbedelkeena qofeed inaynu wax qornaana waxay ka dhigan tahay in loo dhaxal reebo dhaxaltooyo badan oo taariikh badan laga tago marka waxaan leenahay waniira change isbedel baynu u baahannahay ku xagga cadaaladda ku xagga xuquuqda aadamaha ku xagga isdhexgalka bulshada ku horumarka waxaan leenahay Cabdiraxmaan inta cadde taariikhdu galaya Cabdiraxmaan inta cadde waxaan leenahay wax badan oo Soomaaliland ku soo kordhay buugiisan iyo bugaagta kala soo wada way ku dhiirigelinayna waxaan leenahay sharciga marka la dhiganayo principles baa jira equality before the law sharciga hortiisa way loo sameeyay madaxweyne sharciga hortiisa loo masin loo sameeyo madaxweyne sharciga loo masinaa loo sinaa oo ku waafaqsanay si buuxda Singapore xaaladeedu way nooweyn yaalkay ku suuleeyay maanta halkay taagan tahay Cabdiqani Carabaaway taymo oo ka sii dareeda afar qabiilkiga digi jiray midnimada ay keeneen maanta awoodda Chinese ee loo dhigaa wada arkaysa Turkiga halka caarri wada arkaysa laakiin halkeen inagu nalaweydin arkaysa siyaasadda badan bay ugu dhuun dalanaay insha Allah isbedel weyn baa xoog halkaas caawiga heegtaaniga waxaan si toos ah Ilaahay idinkeedii insha Allah ugu yeeri doonaa hadda waxaan si toos ugu yeeri doonaa maayarka mustaqbalka dheerayst bahda daadihinaysa barnaamijkan dhakhaatiirta indheergaradka haweenka dhammaanba ka soo qaybgalayaasha iyo bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam kolley caawa waa habeen qiimo weyn u leh walaalkeen Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac indhacadde waxa uu noo soo bandhigay isagoo xurriyad haysan oo maxbuusa oo qalinka laga ilaalinayo oo uu koobi ka dhiganayay maskaxdiisa oo kaliya qalin iyo buugba waxa uu ahayd in maskaxda uu ku ururiyo waxa uu jecel yahay ee uu hankiisa ama hibiladiisu ay tahay oo kaliya inagu waxaan u maleynaynaa inagoo xurriyad haysana haddana ma leeyihiin akaawna maskaxda kuma leeyihiin wax noo soo koreeya noocaas oo kale ah qalinkan la soo ordaynaa kelmadii cusub haddaan aragno taasi waa taa 10 sano kadib odayga Cabdiraxmaan oo 10 sano lagu xukumay 11 sano iyo Said qalinka waa laga ilaalinayay looma ogolayn xaashi iyo qalin cadaan ah caalamka kama dhicin taasi weligeed waa wax ku cusub buugga waxa uu qoray sanadkan ugu dambeeyay hadda aan ku jirno iyo sanadkii hore gabagabadiisii oo loo ogolaaday qalin iyo buug inuu isku saaro taasi waxay kulli gelinaysaa
ninaan awood haysan qalin iyo buug uu ku qaado oo haddana jecel inuu bulshada u gudbiyo fariin uu dheer yahay dee ama uu ka dareen celinayo ama waxuu ka og yahay oo bulshadeeda inteeda kale ka moogay kelmadda buugii ugu horreysay ayaan la yaabay ta Ismaaciil Cabdiraxmaan uu sheegay ahayd guur leeyahay khulqa weligii ma maqal waxba dii guureysay ahayd wixii ka dambeeyayna waaba dad bay noqotay buugani saan arkay anigu wuxuu sidaa 3 fariimood ku dheeraan maayo fariinta koobaad waxa weeyaan barashada guurka iyo haddii furiinba yimaado waajibaadkiisii oo dhaqankeena suuban iyo islaamiyanba isxambaarsan talabaad waxaa laynagu barayaa iyada oo kitaabka ilaahayna inagu jirta rususha iyo ambiyada iyo mid walba guulaha uu soo gaaray fariinta saddexaad ee buuggani sidaa waxa weeye in anigu arkay adigoo aan xorriyad haysan jecelna inaad wax qarto oo itaal iyo maan iyo muruq waxaad leedahay oo wax ku soo saartaana ayna jirin oo haddana ma garanaysaa hamigaagu fara badan yahay aad u qoraal ku haysaa Cabdiraxmaan buuggan caawaan soo bandhignay maahae markii loo fasaxay uu isa soo dabageliyey hadda mid baa dhammaada oo daabacaad uuna sugaysaa isaguna waa buug ka sii qiimo ballaaran oo ugu magac daray ilaali dadkaaga deegaankaaga iyo dalkaaga taasina waxay ku tusaysaa de in waxa loo haystaba uu maadaama uu ku barayo ilaalintii deegaanka iyo dalkaagaba in waxa loo haystay oo ahayd inuu ninkan dadkiisa iyo dalkiisa ka hor yimiday halkaasi in fariin lidii ay jirtay ninka barashada noocaas wada in loo haysto haddana dalkiisu ka hor yimiday taasi waa taa Cabdiraxmaan indhacdaca waxaa farxad u ah inuu kaalin ka galay ama uu yahay qofkii koobaad ee reer Somaliland ee isagoo maxbuusa buu qoray waa mid ugu xusan taariikhda Soomaaliya ma maqlaan haddii jirtana waa la soo baaray laakiin inta geyga Somaliland waa qofkii koobaad ee qoraal noqda ee maxbuusa waxaana jirtay reer awdal 11 ay Somaliland kaga horreeyeen isna 12 ku noqday inta kale idinka raadsan taa waxaan kaga baxayaa Cabdiraxmaan iyo farxadiisa waxaan soo noqonayaa Soomaalidu sidii Salmaan Mandela uu sheegay waxay leedahay laba diimood diinta koowaad waa qabiil talabaadna waa islaam wayna hooseysaa haddaba waxa aan qabnaa maadaama 8 nin loo xayay kiis noocaas oo 6 ka mid ah iyadoo xukunadoodii ayna dhamaysan la cafiyay labada soo haray waxay u xiran yihiin caqiido islaamnimo maaha oo islaamnimo dheeriin ama argagixisay yihiin maaha waa reewadnimo labada nin ee xaqo waa diyo iyo Cabdiraxmaan Dhacday labadaba waa reewad lixda kale shan reer Somaliland bay hayeen midna wuxuu ahaa dadka bariga هذا اللي حلو سومال لا بهاي لكن من شننا كله قرض الحين بدنا وحوها بريء لبض الصوحة لأنه والرياض عفس العفية كده حكم كوي وحكم سيلوي هاي أنت الحكومي يقول له تاسنا وحويا وعدالة هذا كتير تسومال لا بيكون شيء سا إن تدك قارون حكمنا ذكر عام waxaadogtihiin mudooyin badan oo imika la soo dhaafay in gaar badan laga hayay awdal gaar ahaan Boorama haba se ahaatee wixii awdal iyo Boorama laga raadinayay Hargeysa gudaheega laga qabtay ayna noqdeen dad reer Hargeysa fariin kasta oo lagu tuusan yahay dadka reer awdal waxaan baaq dheer ugu direynaa maanta inay bari ka yihiin inay dad dalkan la jecel kale ay yihiin oo maanta magaca la harsanayo iyo caalamka lagu hoos joogo inta lagu sameeyay gurigooda awdal mana gayaan waxa fariimaha looga dirayo
ee caalamka looga faafinayo ee warre awda la leeyahay waxaad ogtihiin madaxweynayaal ka mid ah madaxweynayaashii Somaliland inay fariin gaara iyo tilmaan gaara ka dhigteen Boorama inay tahay hoyga argagixisada taasina waxaan leenahay xaasha waa tuwaananu geyin haddii aanu nahay bahda reer Somaliland ama reer awdal gaar ahaan reer Boorama dad xorriyadooda iyo nabadooda iyo wanaagooda jecel oo maskax iyo muruq iyo waxay hayaanba ku horumarinaya dalkan weeyi oo dadnimana ku dheehan tahay waxaan kaga baxayaa innaga fariinta inoo taalla oo ah walaalkeena oo maxbuus oo xabsiga ku jira marka uu inoo soo dirayo message-yada iyo maqaalada noocana in innaguna inta kaliya ku gargaarayna ay tahay buuggiisaasi oon ma garanaysaa inta guryaha aan wada dhigano bal waxa uu sidana aan la eegno waxa yar la siisanayaa contribution isaga u noqdaan hubaal barnaamijka caawa si uu qiiro geliyay sideedaba waxaa la yiraahdaa cadaalad darrada keenta nabad darrada in dadku nabad ay ku xasilaan cadaalad darradu haddii baahda nabadda baxaysa nabaddu inay baxdana waxaa sababa weeye cadaalad darradu cadaalad sax ah u baahan sinasho waa taynu mar walba ku celcelinayno dhinaca caraba waxa uu yidhi dambaskan aad moodaysay inuu damay dambiilo holcaya ayaa ku hoos jira gabayga inaad isoo qabataa ma jecla haddii dugsiyada sare soo marteen waaye halka dambe idinka soo xasuusanaysaa waxaan si toos ah ugu soo dhawin doonaa Asma Saciid Yuusuf Asma أولا ما السلام يا دمانتي بمر شرف ودتين ودتي سمنتين مركي حتى هرت عاوة هذا الذي يجوه رأي أنت يجوا بدنا دكتور نقصد على سواء حكم لها إني عاوة هاي معجزة راعدة وقراجة يبوجا يعاوة وحلو معجزة وإيه هاي معجزة قراجة مركي لقي مادة يبوجا معجزة كل واحد جرت عليه نفتي ذي قصير راعدة ويا مركي يعني إيماني ليس شيء بنديكا waxaan ku soo talagalay sidaynu u baranay inaan buugiyo qoraagiisa hor joogan iman doono kadibna informationkiisa ka heli doono ciidu yahay laakiin waxa yaabigu noqotay inaanu jooginba qoraagi buugeenu misna uu yahay saacadan imka in joogno qof jildax jooga ma ogi informationkiisa waxna ka sheegi maayo laakiin buugan aynu hadaynu u soo noqono wax ka yar baan eegay 5 minute oo buuga informationkiisa contentkiisa waxaas runtii maskaxda uu ka soo baxay buugan horta wuxuu ku qoray Soomaaliyan fahmi waayay runtii iiga daaweeyay bay cadeysuu qof yahay xikmadda iyo wuxuu ku qoray yahay runtii waxba kama fahmin ruma kan sheego walaalkii waxaan oran lahaa runtii buuga sidan u arkay uma malaynay de horta ilaahayba oo wax ka sheegi maayo laakiin qofka uu buugaas aan way aragu lahayn bulshada ama in badan soo dhaxmarin qof in ka badan 8 sano markuu 8 sano ligidi in ka badan 8 sano qof jeer ku soo dhex jiray isla information ka inta laga xambaarsan inagina caaw xorriyad haysana uqaashina iyo damaanteeba ma hayno runtii information ka marka ilaahay ha ka soo dib yareeyo haduu dulmi yahay iyo hadii waajibkiisa la mariyay ilaahay bay goog laakiin waxaan oran lahaa ama fariiniga gaar lahayd يعني قف مركو يهي قفتي حلم إسكده 8 سنة إيه 12 سنة تشاركوا شرتو لبع شو أما بتضبط حرية هذا لقى حلو أي وحي كوجلين لسان الله تي وجوه حمايد مثلا كوجارسين زهرة النفط هذا نعي دونتو أو النفط هذا ديلي دونتو لكن يسووا معجزة الأشياء وحوي إن يسووا إن كبدن 6 سنة سيد الأشياء 12 سنة تشاركوا حلم إنه هذا إن tusay niyad furnaantiisa iyo sida uu niyadsan yahay uu rabo wali inuu inala wadaago misna inaga inoo faa'iideeyo inaga yahayd inaynu ogaano maadaama uu yahay reer awdal kasoo Somaliland iyo Soomaalinimada qof reer awdal oo intaas oo dhan inaga xidhnaa inaynu ogaan weyno ana ugu horeeyo reer awdal aan ogaan waayeba caawa magaciisa igu horeyso أنا إذا كعاو مجلس يجور سيسكن أنت أساسا ويسود ذلك سيد ويجو فائدين لها مستقبل خيجا
marka ilaahay waan u ducaynaynaa intaynu duco karno insha Allah ilaahay ha u fududeeyo dhibta uu ku jiro hana ka soo saaro buugaagtiisa dambe waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu isagu intuu ina hor imaado inoo faa'iideyn doono insha Allah markii xitaa haddana soo noqdo buugga runtii buug waa buug faa'iido weyn inoo leh siminkan aynu joogno amba yani xilligan aynu joogno waxaynu aad ugu baahanahay gabdhiyo wiilalba runtii gabdho unbaa la yidhaahdaa in badan marka laga sheekaynayo xuquuqa zawjiinka gabadh unbaa lasoo hadal qaaday waxaa la yidhaha gabadhay ninkaagu waxaasuu xaq kugu leeyahay intaasoo maxaadaraynu ka qayb galnay intaasoo bugaaga lagu soo bandhigay bugaagta xuquuqa zawjiinka weli ma arag nin la leeyahay in wiilal inta wiilal la soo ururiyay la leeyahay wiilaloo gabdhihiin xaqaas idinku leeyihiin intaas fariinta waxa weeye koowaad fariinaan u dirayo qoraayadeena wiilasha ah iyo sheekhyadeenaba waxaan leeyahay maxaadiraadka markaad qabanaysiin adeer u sheeg waxaan xaq sidoo kale qoraayada marka bandhigyada la joogo waxay aad u jaleecaan markay bugaagtada soo bandhigayaan misna ku farxaan inay gabdhaha ishu ku godaan oo iyaga u sheegaan xaq ay nagu leeyihiin laakiin idinka way idinka dhiman tahay dhinaciinii taas waa fariinteeda idinka idiin socota intaynan xaggan fadhida waxaan rajaynayaa si feedbackeenu uu u noqdo mid positive misna walaalkeenan u tusno sidaynu ag joogno inaynu insha Allah qaadano bugaagtan uu walaalkeen inoo soo hadiyadeeyay hadiyadeen aynu u diraynana noqoto bugaagta kasoo iyo waxaynu ku faa'iidno isaga waxaa farxad gelinaysaa intaynan caawa xaggan fadhiday intaynan naga maqanba markaynu buugta akhrino inaynu ku dhaqanno wixii walaalkeen inoo sheegayay intiina u soo xadka xidhatay inay guursadaan muddooyinka dhow iyo intiina ku tala jirtaba hadiyadii walaalkiin wataasi guddooma gudbin doonaa mikrofoonka ama bibi doonaa waxaa laga yaabaa inaynu waxoogay yaraan dareenay cayse abaankii bay nala fadhiya cabdiraxmaan fiil soo dhowo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta wiilaliyo gabdhaba leh oqaasha aqoon-yahanka xildhibaanada dowladda qoraayada hal-abuurka dhammaantiis iyo saxaafadda dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum salaan kadib aad baan u qiirooday si kelisaa laygu sheegay barnaamijka in buug la soo bandhigayo wuxuu iga duwanaa buugtii laga sheegi jiray in la soo bandhigayo aniga waxa taytal ahaan laygu soo qoray inaan maqto guurka iyo waxyaabahaas ka hadlaysa soo jeediyo haddii aan usoo noqdo qoraagan iyo buuggiisa qoraaga buuggan inoo qoray aan midhihiisii arkayno oo ah wixii ugu wanaagsanaa ee ahayd in laga hadlo guurka oo ah sunne uu nabigeena sallallahu alayhi wasallam inoo dhigay culimada qaarna sheegaan inay qayb waajib tahay markaas anigu waxaan u leeyahay buuggan ha la turjumo luuqado badan ha loo turjumo maadaamuu yahay wax aniga ahaan horta marka la sheegayo inta da-daydu tahay waan maqlaa dad wax qora wax wanaagsan ha qoraan ama wax aan muhiim ahayn ha qoraan waxa imiga iyo cad waxa uu qoray inuu muhiim yahay waxa uu qoray inuu muhiim yahay waan jeclayn isaga inaan la kulanno iyadoo hadalka dadkii iga horreeyey anigoo daqiiqadaha ilaalinaya waxaan u gudagulayaa maasadayda maasadan asmaa imiga markay hadlaysay bay waxbay carabka ku dhufatay marka laga hadlayo guurka waxa inta badan lala hadlaa ee wax la faraa waa gabadha weeyaan maasadana wataana gabadhay faraysaa marka si aynan iyadaan u qanciyo bulsho waxay wanaagsanaan kartaa markay dumarkoodu wanaagsanaadaan hadday gabadhu wanaagsanaato odhaahbaa ahayd waxaan filayaa wiil wax la baraa waa nin hal qof wax baray wax noocaas haddii laakiin gabadh wax la baro waa bulsho wax la baray
marka in gabadha in badan wax loo sheego inay muhiim tahay maasada yar xujaa la yidhaahdaa gabdhaha la hadlaysaa wax wanaagsanna u sheegaysaa waxaa wanaagsan hadday qaataan adaa wanaagsanaanaya anaa wanaagsanaanaya dhammaantiin baa wanaagsanaanaya waa waxaan ku odhan lahaa ani ma guursan haddana ma guursanayo gabadhaan guursan lahaa waxaan ku odhan lahaa adiguna gabadhaan guursan lahayd waxaad ku odhan lahayd walaashay waxaan ku odhan lahaa walaalaha kale oo gabdhaha Soomaaliyeed aad u jecelahay waxaan ku odhan lahaa ayaan odhanaya masada waxay ku laamaysaa sida xijaab ku dabool jirkaaga asturo xubnahaaga qaawan ha tusi ragga xaadda jiifta xirbaha iska xiridayso ha xidhan dharka reer galbeedka ha xaman ruuxna inaabti u boqo ilkiya xabaasha iblis xeradii ha aadin xumaan iyo cayha doonan dadaaban xantaynta jooji ku xasid diintiyo quraanka jirkaaga xareed ku joogta xaadda dhabankaaga teedsan xubnaha ee bahay ku siiyay xiskiisu qof uu fayowyay xaqiiqdii uu jeclaane xayeysiintu ka dayso rag baa jira xaasidiina qalbiga ka xalli ku iibsan xariifiin baa ku raadsha xirfado gaarana yaqaana xayraanka kugu wareegsan ka xidho dabnihi afkaaga waxaad xulataa nin diin leh xamdiya tukadoo salaada xakiimkiisana yaqaana qudhiisa ninkii xisaabsha ninkii xoolaha agoonta xaqooda ilaalinaya nimaan aadmiga xumaynin nimaan ximin ruux tis qaaday nimaan xaasidin walaalka xaraamta nimaan ku dhiiran la jaar ninka xeer yaqaana xamaasad intay ku qaado qabiilaysi iyo xigtaysi harraaci nimaan xadlaynba maalkii xoolaha adduunku xaqiiqdii way quraane ninkii qaadaya xilkaaga ninkii xulo kuu qalmaaya ha xagan ruux adi ku doonan ha xuubsan reerka jaarka ayuunkaa caban xigaalku ayaan lagu odhan xisbeela garaadaran xumo qorsheeya dad xaasida mukuruxiima runacab garashada xabaala xintama keligeed abraara iskeed iska xiiqa daala xawaaraha boqol dhaqaaqa isxada isku buuqa yuusa fudfudud xuufiya dabaysha ayaan lagu bixin xishooda adoon ku xabeebin gaalka ku xilmi filimada khiyaalka adoon xadhigooda haysan dadaan ku xusayn laftoodu axdiista iyo xifti adkaarta ninkaaga xurmee wanaaji xaq dhowr oo sii kalsooni xaqiisa garoo ilaasho u xifti sirihiisa kaydi xaalkiisa ninkaaga fiiri habadin xawliya maqnaasho ha tusin cadho iyo xanaaqa u noqo xidigoo ku faano حيابو كتاج أرضاجا حبار وبركية دلانكا ناس كده حلقوا النوجي أنت الحشوال كما يدو قريجا حادث سفيسو كش ده حسلوني أنسي إنها كولو حنا يسو در كده حركوا وعرفايا مركو حاجي ويماتو حسوستها هذا ملفوق هجلو حارضها تعايلكا حتى قبل حيل لجيرة حنين يهرب بلا شيلين خضار يحب لا شيحي حلوة تمر ملب لميري حواش موس عنب نتولي هعنو وحو حاحي لا بدل عجيبة ما نريد واي هاي وقدامي waxaan ku soo dhaweyn doonaa hadii ilaahay idin keenayo barnaamijka qoraagi adduunayna la joogin maanta cid baa inooga dareen iyo damqasho badan waxaan si toos ugu soo dhaweynayaa qoraaga walaalkii baan ku soo dhaweynayaa qoraalka walaalkii baan ku soo dhaweynayaa mar saddexaad qoraaga walaalkii baan ku soo dhaweynayaa bulshada aadka u faraha badan leh ee kala duwan rag iyo dumarba shacab iyo dawladaba leh aad ayaan ugu mahadnaqayaa xafladda sida qiimaha leh uga soo qayb galay waxa kalena bulshada inaga maqanayna daawan doontana waxaan ugu bushaareynayaa inay buug fiican oo cilmi xambaarsan ay heleen marka intaas waxaan ku sii dari lahaa ninka qoraaga ah ee buugga soo qoray ee maxbuuska in badan ayaa laga soo sheekayay dadkii ugu horreeyay si fiican ay uga soo sheekeeyeen marka waxaan ku darayaa inuu buugga in badan uu mashquul u galay siduu bulshada u soo gaarsiin lahaa isagoo oo jeelka gudihiisa isagoo xorriyad la'aan awgeed
muddo dheer la raftay dhibaatooyinka jeelka ku haysatan ka hadlo waxaa u dheer dhaawac jeelka gudihiisa ku gaadhay oon wax dawo ah weli aanu helin deeta markaas intaana xukuumadda waxaan u marinaynaa gaal iyo islaam weli laguma hayo qof maxbuusa oo la yidhaa la daweyn maayo ee sidaa siica ugu geeriyoodo deeta markaas xukuumadda waxaan leenahay ninkaasi dawada la ogaada waayo haddaan taa buugga uga gudbo buuggu sidaynu aragnay wuxuu si dhab ah uga sheekaynaya isagoo diintana ku salaysan guurka waaye guurkana beriye dhaweedo sanado dhan soo dhaafnay oo ama sifil war ama dagaalo sokeeye ay dhulka aada uga socon jireen waxaa jirtay inay dadkii ay iswada guursadeen oo la dhaa labadaas mayskii labadaas dee sheekh baa isku meeriye maxaa ka macnaa dee nin baa yaabay oo yidhi war sidan maanaan arki jirin waa sidee dee sheekh dee u gebiyo wuxuu yidhi guurkii xumaayo hadduu gebi ka laalaado uu ninkii geeliida gabadhuu lahaa tani gayaan mooday guur noqoni maayo magacantanba halkay baratay gaadhays fiiriyo gabadh markaan eegay buu yidhi kii walaashii ninkii garab mara ugu garaadro deeta markaa wixii muhmalka iyo muranku iyo inantan maalgeeda ma inanta soorila inankaasa ka waran buugga ayaa inaga shaafiyaya oo markaasi muhmal la-aan ayuuna walbada iyo inan waliba dooqeeda iyo jacaylkeeda ee ah ay ku xulanaysaa isaga oo ka baxday xaggii ay isweydiin lahayd xagga diintu maxay ka qabtaa iyadoo laga shaki baxay deeta markaas waa cilmiga buugga xambaarsan yahay aadna looga sheekeeyey deeta buuggan oo maktabado meelo badan yaalla wajaale hargeysa boorama bulshadayna daawanaysa aan ugu bushaaraynayno inuu buuggaasi qiimihiisa aad arki doontaan waayahay intaas kusoo gabagabaynaya